بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhageystayaal meel walbo aad naga maqlaysaan halkan waa radio gedo codka gobolka gedo xaruntiisa degmada doolo Soomaaliya moojada 89 eber megahertz ku soo dhawaada warka gudaha iyo daafaha caalamka idin kaga hayno waxaana idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdinuur Cismaan Cabdi madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ku guuleystay doorashadii saddexaad ee ka dhacday dowlad goboleedka Jubbaland sargaalkii hogaaminayay howlgalka shabeellada hoose oo la dalaacsiiyay Jabuuti oo shaacisay in aysan ka rajo dhigin kursiga qaramada midoobay ee la siiyay dowladda Kenya waxaa sidoo kale warkeena aad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dood cilmiyeedkii soddonaad ee fagaaraha forum ee Minneapolis lagu qabtay afhayeenka baarlamaanka dalka New Zealand ayaa shir gudoomiyay dood dhaxmaraysay golaha aqalka wakiilada isagoo dhabta ku hayo wiil yar dalkaasi Isbaanna nin lagu eedeeyay inuu duubtay cawrada 550 haween ah oo ku nool magaalada Madrid ee dalkaasi Isbaan dhageystayaal qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad dhageysan doontaan iyo xubintii ciyaaraha ee u diyaar garooba madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa ku guuleystay doorashadii saddexaad ee ka dhacday dowlad goboleedka Jubbaland waxaa magaalada Kismaayo warbixintaas inooga diyaariyay Ilyas Cabdirashiid Cabdiqaadir Axmed Maxamed Islaam ayaa markii saddexaad noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland 4 sano ee soo socota isagoo ku guuleystay doorashada dhawaan ku soo gabagabowday magaalada Kismaayo mudane Axmed Islaam ayaa wareegii hore ee doorashada helay tirada codadkii loo baahnaa isaga oo helay 56 cod halka musharaxii ku soo xigay Canab Maxamed Daahir heshay 17 cod musharaxa saddexaad Maxamuud Maxamed Cumar ayaa isagana helay 1 cod taasoo ka dhigan in dhammaan 74 xildhibaan ee baarlamaanka ka kooban yahay ay codkooda wada dhiibteen iyadoo aysan jirin wax cod oo xumaaday doorashada ayaa si nabad ah u dhacday iyadoo aad loo adkeeyay ammaanka goobta ay doorashada ka dhacaysay sargaalkii hogaaminayay howlgalka shabeellada hoose oo la dalaacsiiyay warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyay Nuur Xuseen Xasan taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi Indha Qorshe ayaa u dalaacsiiyay darajada gaashanle Cabdi Ali Raagi oo ah sarkaalkii horkacayay howlgalka gobolka Shabeellada Hoose Indha Qorshe oo booqday qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Bariire ayaa ku ammaanay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallada ay ka wadaan gobolka iyo deegaanada ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab waxaana howlgalka intooda badan horkacayay Cabdi Ali Raagi sarkaalkan ayaa sidoo kale la guddoonsiiyay shahaado uu ku muteystay karti dadaal iyo geesinimo iyadoo uu taliyaha ku dhiirigeliyay sarkaalkan inuu sii guto waajibaadka ka saaran difaaca dalka wali dhageystayaal waxaad nagala jaan qaadaysaan radio Gedo codka gobolka Gedo xaruntiisa degmada Doolo Soomaaliya iminkana Jabuuti oo shaacisay in aysan ka rajo dhigin kursiga qaramada midoobay ee la siiyay dowladda Kenya waxa warbixintaasi inoo hayo Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan danjiraha Jabuuti u fadhiya ee Mareykanka mudane Maxamed Saciid Daawud ayaa sheegay in aysan wali ka rajo dhigin kursiga qaramada midoobe ee shalay midowga Afrika uu siiyay dalka Kenya safiirka ayaa sheegay in aysan isdhiibin dawladiisa isla markaana ay ku tartami doonaan xubinimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka sidoo kale wuxuu u mahadceliyay dalalka taageerada u fidiyay dalkiisa isagoo oo xusay inay sii wadi doonaan ololahooda ay ugu jiraan kursigaasi Jabuuti waxay mar labaad xaqiijinaysaa go'aankeeda ah inay sii wado dalabkeeda ah inay kursiga ka hesho golaha ammaanka muddo 2021 ilaa 2022 ayuu yiri mudane Maxamed Saciid Daawud sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dawladaha xubnaha ka ah UN ee ka taageerada u muujiyay Jabuuti shalay ayay ahayd markii uu midowga Afrika uu Kenya u doortay musharax kursigaasi kadib codeyn ka dhacday xarunta ururka ee ku taalo magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iminkana Mareykanka dood cilmiyeedkii soddonaad ee fagaaraha forum ee Minneapolis lagu qabtay Cabdullaahi Maxamed Xamuud ayaa warbixintaasi inoo koobayo
waxaa sabtidii magaalada Minneapolis lagu qabtay dood cilmiyeedkii soddonaad ee fagaaraha Forum kaasoo lagu falanqeynaya xaaladda siyaasadeed iyo tan amniga ee Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Baale, Sahra Cabdi Axmed oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA, Daawud Ciid Cusmaan oo ah aqoon-yahan iyo cilmi bare Soomaaliyeed. Doodda waxaa furay gudoomiyaha fagaaraha Forum, Faarax Maxamed Cali, wuxuuna sheegay in ujeedka ugu weyn ee fagaaraha ay tahay isku keenida fikradaha iyo wada hadalka dadka Soomaaliyeed. Danjire Abuukar Baale oo hore u soo noqday agaasimaha madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa yiri caqabada ugu weyn ee Soomaaliya haysato waa Al-Shabaab, iyagoona marxaladda ugu dambeysay ay ku jiraan. Waa cadow ummadda Soomaaliyeed, mar dhowna waa laga adkaan doonaa, waana inaan isku mid ula dagaalanaa, ayuu yiri Ambassador Abuukar Baale oo intaas ku daray Soomaaliya xilligii adag oo kala duwan ayay soo martay waxayna hadda ku jirtaa xilligii ugu fiicnaa. Danjire Abuukar Baale wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay xasiloonida dalka iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed. wuxuuna ka hadlay arrimaha federalismka. Nidaamka federaalka waa sharci dalku leeyahay, laakiin waxay dood ka taagan tahay noocee qaadanaa. Waxaa jira fasiraadyo badan oo laga sameeyey oo u baahan in cilmi baaris lagu sameeyo noocyadaasi, kadibna kan ugu fiican la isla qaato. Sahra Cabdi Axmed oo ka hadlaysay arrimaha xilligan taagan ayaa tiri khilaafka joogtada ah ee dowladda iyo maamul goboleedyada wuxuu sii fogeynayaa xaalka, waxaana ka faa'iideysanaya dowlad goboleedka iyo kuwa shisheeye oo kale. Waxaa jiray dad badan oo qaba aragti ah in dalku hore u socdo si kastoo isjiijiid iyo isfahan la'aan ay ka jirto ay sii raacisay Sahra. weli dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan Radio Gedo codka gobolka Gedo. iminkana xubintii ciyaaraha waxaa markaasi aalaab inala socodsiiyo Nuuraddiin Xasan Deeq. Nuuraddiin, mahadsanid cabdinuur. haddii aan fiirino xubintii ciyaaraha, wararka ka imaanaya ayaa la sheegaya macquul ma tahay in shaxda Bayern Munich ay sidaan u muuqato kadib imaatankii Coutinho iyo Persig. wargeyska Asia dalka Spain ayaa daabacay shaxda cajiibka ee kooxda Bayern Munich ee la filayo inay ku sharatagto xil ciyaareedkan 2019 iyo 20 kadib markii ay Barcelona kala soo saxiixatay xidiga reer Brazil ee Philippe Coutinho. Bayern Munich ayaa xaqiijisay inay kula wareegtay laacibka qadka dhexe ee kooxda Barcelona Philippe Coutinho heshiis xil ciyaareed oo amaah ah oo ay dhiibeen 8.5 milyan oo euro, iyagoo dooq u haysta inay 120 milyan oo euro ku wada iibsadaan xagaagan soo socda. kooxda reer Germany ee Bayern Munich ayaa ku sameysay suuqan xagaagan heshiisyo muhiim ah, gaar ahaan xidigaha kale ah ee Benjamin Pavard, Lucas Hernandez iyo Philippe Coutinho iyo Ivan Perisic. Tababaraha reer Croatia ee Niko Kovac ayaa waxa uu ugu yaraan heystaa hadda shaxda ugu fiican ee dhammaan boosaska kala duwan ee kooxda ku kooban tahay, wuxuuna u dagaalami karaan dhammaan tartamada kala duwan ee qaybta ka yihiin xil ciyaareedka marka loo eego tayada xidigaha ee haatan ay haysta Bayern Munich. dhanka kale weli waxaa la sheegayaa Antonio Conte oo weli ka go'an inuu la soo wareego xidiga ka tirsan Barcelona. macalinka kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ee Antonio Conte ayaa weli ka go'an inuu la soo wareego xidiga qadka dhexe ee kaga ciyaara Barcelona ka hor inta uusan xirman suuqa xagaagan. sida la soo xigtay wargeyska Tutto Sport ee dalka Talyaaniga ee tababare Antonio Conte ayaa waxa uu kalsooni ku qabaa in xidiga reer Chile ee Arturo Vidal uu si weyn kaga caawin karo Naruzzari loolanka ay ugu jirto xil ciyaareedkan tartamada kala duwan. wararka ka imaanaya gudaha Talyaaniga ayaa waxay sidoo kale tilmaameen in Barcelona ay u baahan tahay inay iska iibiso Vidal haddii ay doonayso inay soo afjarto heshiiska ay ku doonayso Neymar Jr xagaagan, maadaama ay lacago u baahan tahay kadib markii ay dhawaan la soo saxiixdeen xidigaha Griezmann iyo De Jong. inkastoo saraakiisha kooxda Inter Milan ay ka soo horjeedaan heshiiska, haddana tababare Antonio Conte ayaa weli ku dhagan go'aankiisa, wuxuuna doonayaa inuu la soo wareego Vidal xagaagan, mana aqbali doono go'aan kale. jariirada maalinlaha ee ka soo baxda gobolka Catalonia ayaa xaqiijisay in Vidal uusan wax dan ah uu ka lahayn inuu ka tago Barcelona, isla markaana uusan xiiseynaynin kooxda xiiseynaysa adeegiisa. xubintii ciyaaraha waa naga intaa dhegaystayaal aan idinkugu celiyo warka qaybihiisa dambe ee Cabdinuur. aad ayuu u mahadsan yahay Nuuraddiin Xasan Deeq oo inta badan nala socodsiiyo xubintii ciyaaraha. afhayeenka baarlamaanka dalka New Zealand ayaa shir gudoomiyey dood dhex maraysay golaha aqalka wakiilada isagoo dhabta ku hayo wiil yar. afhayeenka ayaa la arkayay
isagoo cunuga dhabta ku hayo islamarkaana masaasad caano ku siinayo. Trevor Mallard ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay sawir muujinayo isaga oo masaasad ku habayo wiil yar oo u dhashay xildhibaan lagu magacaabo Timothy Covey xilli uu shir gudoominayay kalfadhiga baarlamanka. Covey oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga shaqaalaha ayaa shaaciyay dhalashada wiilkiisa Tutaneka Smith Covey bishii July. Qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay Covey oo ku saabsanaa dhalashada wiilkiisa ayaa u sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay ka badatay farxadda cunugooda yar. Covey ayaa Arbacadii yimid kalfadhiga isaga oo wata cunugiisa kadib markii uu dhawaan ka soo laabtay fasaxa uu qaatay markii uu cunugiisa dhashay. Intii lagu guda jiray doodda baarlamanka ayaa waxa uu afhayeenka baarlamanka Trevor Mallard uu isku hayay ee shir gudoominta iyo haynta cunuga. Xildhibaan Gareth Hughes oo ka tirsan xisbiga Green Party ayaa soo dhigay bartiisa Twitterka sawirka Mr. Covey oo kor u hayo ilmaha yar ee baarlamanka dhexdiisa. Dalkaasi Spain nin lagu eedeeyay in uu duubtay cawrada 550 haween ah oo ku nool magaalada Madrid dalkaasi Spain. Ninkan ayaa lagu xiray magaalada Madrid isaga oo looga shakisan yahay inuu duubtay muuqaalo uu ku bartilmaameedsaday cawrada dumarka goonooyinka qaba kadib muuqaaladaasi intooda badan uu geliyay online-ka. Ninkaas oo u dhashay dalka Colombia islamarkaana 53 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu muuqaaladan ku duubay taleefanka gacanta uu ku qariyay boorsada dhabarka lagu qaato. Booliska ayaa sheegay in ninkaasi website-ka geliyay ugu yaraan 283 muuqaal lana daawaday malaayiin jeer, qaar badan oo ka mid ah 555 dumar ah. Muuqaaladaasi qarsoodiga ah laga duubay ayaa la sheegay in ay ahaayeen gabdho ay da'dooda ka yar tahay 20 sano, kuwaasi oo badankooda lagu bartilmaameedsaday qadadka tareenada. Ninkan ayaa lagu eedeeyay inuu maalin walba duuban jiray cawrada dumarka goonooyinka qaba tan iyo xagaagii markaas oo uu bilaabay inuu muuqaaladan geliyo online-ka. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu mararka qaar bartilmaameedsan jiray dumarka ka adeeganaya suuqyada isaga oo salaami jiray islamarkaasna baran jiray dumarka si uu isugu dayo inuu ka duubto muuqaalo si fiican loo arki karo. Booliska ayaa bilaabay in ay dabagalaan ninkan laga shakisan yahay, waxayna xireen isaga oo haweeney ka duubayo goob laga raaco tareenka dheereeya. Muuqaal ay Twitterka soo dhigeen booliska qaranka ayaa lagu sheegay in ninkan laga shakisan yahay uu yahay mid ka mid ah dadka geystay meel ka dhaca ugu weyn ee dumarka. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay dhageystayaal warkii aad kala socoteen Radio Gedo codka gobolka Gedo xaruntiisa degmada Doolo Soomaaliya. Waxaa sidoo kale warkeen aad kala socon kartaa barta Facebook ama YouTube aan ku leenahay Radio Gedo codka gobolka Gedo. waxaana warka intii uu socdo idinla socodsiinayay aniga oo Cabdinuur Cismaan Cabdi. Dhanka farsamada waa Cabdullaahi Maxamed Xaamud. intaan warkan warka xigaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.